waxaa saaka si rasmi ah loogu dareeray qaadashada kaarka codbixiyayaasha doorashooyinka Somaliland kaas oo si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaanba gobolka Awdal iyo Salal dhanka kalena waxa iyadu sidoo kale ay ka bilaabmatay degmooyinka hoos yimaada guud ahaanba goboladaasi oo indhaha ugu qabanayeen safaf dhaadheer oo loogu jiray bartamaha magaalada Boorama goobaha ku yaala qaadashada kaarka codbixiyayaasha iyadoo guud ahaana ay ahayd tirada goobaha loogu talagalay guud ahaanba gobolkani Awdal 138 goobood kaas oo si habsami ah saaka uga socotay qaadashada kaarka codbixiyayaasha doorashooyinka Somaliland iyadoo ay kormeer kala duwan ku soo bixiyeen qaar ka mid ah asxaabta qaranka kala duwan iyo waliba madaxweyne ku xigeenka Somaliland ayaa waxa goobtaas ka hadlay mas'uuliyiintii asxaabta qaranka runtii waxaynu isugu nimi hawl qaran oo diiwaangelinta muwaadiniinta codka bixinaya oo maanta si rasmi ah uga bilaabantay gobolka Awdal iyo Salal waxaan ku hambalyeynaya markii hore shacbiga gobolkan ay ka bilaabantay diiwaangelintu sida ugu diyaar garoobeen diiwaangelinta waxaan shacbiga leeyahay si wanaagsan bay inoogu bilaabantay dulqaad badan aynu yeelano waa maalin taariikhi ah oo ku santanaa doonta taariikhda Somaliland isdiiwaangelintii oo gobolka Awdal ka bilaabtay si nabada oo qurux badan oo degan ilaahay dadkiina si wacan bay noogu dhammaan doontaa waxaan u mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Awdal sida wanaagsan ee ay uga qayb galeen bilowgii diiwaangelinta Jaamac Xuseen Jaamac Abdulle Somaliland Space Channel Boorama